السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan war ilaag shacabka YouTube ka aniguna waa Duqaadir Xasan Haduuliye is arag wanaagsan maadaama sharciga degnaashada wadanka Jarmalka uu muhiim yahay isla markaana uu la mid yahay macnaha qofka sharciga degnaashada haysta ee wadankan jooga in markaasi uu heli karo ama ay u fududahay inuu sharciga weyn ee dhalashada wadankan qaato. haddaba haddii aad haysatid sharciyadan haddaad haysatid lafta kaliya haddaad haysatid ama sharcigan haddaad haysatid garawga ah ama bini'aadanimada ah ama midka qaxootiga haddaad haysatid haddaba imise ayay kuu jirtaa in aad qaadatid sharciga degnaanshada. shuruudaha lagaa rabo maxay tahay haddaad sharciyadan aad macnaha haysatid inaad sharciga degnaanshada aad qaadatid. haddaba shuruudahaas maxay ka kooban yihiin may kala duwan yihiin shuruudaha lagaa rabo haddaad sharciyadan haysatid oo aad doonaysid inaad qaadatid sharciga degnaanshada. muuqaalka ayaan ku faahfaahin doonaa oo aan uga hadli doonaa. haddaba intaan muuqaalka guda gelin markii ugu horeysa hadday tahay ee aad YouTube-ka soo booqatid YouTube-ka subscribe inoo sar waa inoo dhiirigelin wixii fikir ah ama talo ah waxaad igula wadaagi kartaa qaybta commentiga ama sidoo kale Instagram-ka aan leeyahay. sida caadiga ah dadka Soomaalida markii ay wadanka Jarmalka yimaadaan waxa la siiyaa sharciyo kala duwan. haddaba sharciyada la siiyo marka ugu horeyso qofka waa saddexdan ayaa ugu muhiimsan. macnaha sharciyada caadigan ka hadlaya marka laga reebo in sharciyada yaryarka ee markaasi bilooyinka ah ama midka ugu horeeya ee la siiyo warqadda iyo mid yaroo la isku laabo oo bilooyin laga yaabo inuu yahay. laakiin sida caadiga ah qofka sharci waa la siiyay haddaad maqashid waa inuu saddexdan midkood haystaa. macnaha sharciga saddexdan haystaa waa inuu lafta kaliya haystaa oo lafta la siiyaa ama sidoo kale sharcigan garawga ah ama sharcigan greyga ah iyo laftiisa la siiyaa ama sidoo kale sharcigan la siiyaa buluuga ah iyo laftiisa. haddaba sidaas waa inaad u ogaataa haddii lacala aad doonayso macnaha sharciyada inaad kala ogaatid horta intaas ayay u kala baxaan. marka saddexdan sharci qofka markuu qaato kadib ayuu markaasi soo gudbaa oo sharciyada kale usii gudbaa. laakiin haddii uusan intaanba haysan macnaha waxaa u dhiman weli inuu saddexdan qaybood mid kamida uu qaata ayaa u dhiman. taas horta waa inaad ogaataa. haddaba sharcigan buluuga ah waxa uu yahay waa sharciga macnaha qaxootiga ah. sharciga qaxootiga haddaad maqashid ee Jarmalka waa kan iyo laftiisa waa laftaas oo kale macnaha. haddaad maqashid sharciga bini'aadamnimada labadanba way noqon karaa. macnaha midkan greyga wuu noqon karaa iyo laftiisa oo dadka la siiyo iyo marmar oo la siiyo lafta kaliya qofka la siiyo. marka hadduu rabo xataa qofka asaga midkan dalban kara oo qaadan kara macnaha haddii uu lafta haysto waa inuu asaga dalbadaa. marka intaan markaad haysatid waxaad doonaysaa oo muhiim ku ah inaad gudubtid oo aad u gudubtid inaad sharcigii weyn aad dalbatid ama sharciga aad dalbatid macnaha muxuu ahaa deganaashada laftirkiisa lagu sheegayo waa kan oo kale kaliya macnaha qoraalka ayuu ku kala duwan yahay. macnaha kan iyo laftiisa waa marka laakiin waxa ku kala duwan informationka gudaha ku qoran ayaa ku kala duwan yahay. marka midkan oo kale hadda waxa ku qoran oo kale kan hadduu yahay macnaha sharciga qaxootiga waxa ku qoran macnaha waa sharciga ugu horeeya lagu siiyo markuu yahay waxa ku qoran Aufenthalt Erlaubnis ayaa ku qoran. macnaha Aufenthalt Erlaubnis ayaa ku qoran. markii uu markaa yahay qaxootiga macnaha uu yahay sharciga degnaanshadana waxa ku qoran Niederlassung Erlaubnis ayaa ku qoran. marka qoraalkaas macnaha ayay ku kala duwan yihiin. waa laga yaabaa xilliga dhicitaanka laftigiisa inay ku kala duwan yihiin. marka muhiimad caynkee ayuu leeyahay macnaha qofku horta inuu marka ugu horeyso uu sharciga degnaanshada raadsado. sharciga degnaanshada waxyaabo badan ayuu ka saacidayaa. muhiimaduna waxay tahay macnaha sharciga degnaanshada haddaad mar qaadatid waxay ka dhigan tahay in aad sharciga weyn heshid boqolkiiba 85% ayaad rajo leedahay. macnaha waa meesha ugu fiican oo qofku rajo ahaan uu gaari karo. marka waxba kaagama dhibno sababtoo ah sharciga degnaanshada iyo sharciga weyn shuruudihiisa inta badan way is leeyihiin. macnaha waa sidaas waa inta badan way is leeyihiin. waxa laga yaabaa wax yar inay ku kala duwan yihiin bas oo laga rabo intaas yarta inaad soo dhameystirtid. horta shuruudda laga rabo maxaa waa intaan u guda gelin waxay ku kala duwan yihiin. tusaale marka ugu horeysa waxa laga rabaa warqadda Leben in Deutschland. macnaha warqadda macnaha shahaadada ka hadlaysa ee laga rabo inaad baratid magaalooyinka ayaa muhiim ku ah. macnaha Leben in Deutschland ayaa la yiraahdaa. intiina badan waa garanaysan Jarmalka haddaad joogteen. sidoo kale shuruudda labaad ayadana waxay tahay waxa lagaaga baahan yahay shahaado luqadeed oo ah B1 ama A2. magaalooyinka qaar waxa laga yaabaa inay macnaha ay shuruudo kala duwan leeyihiin
laakiin inta badan shuruuddan ayay ka siman yihiin. Sidoo kale shuruudda saddexaad ee laga rabo waxa ka mid ah in aad shaqaysay 3 bilood ugu dambeysay. Marka waa inaad fataraaggaaga shaqada aad geysaa 3 biloodna aadan wax lacag ka qaadan macnaha dawladda ama job center ama socialka aysan wax lacag ku siin. waa ku muhiim waana qodobada muhiimka ah ee qofka laga rabo. waxyaabaha kale oo ku muhiimka ah oo aad laga rabo waxa kamid ah oo la'aantii sharciga deganaanshaha aad qaadan karin inaad Soomaalinimada cadeysay. haddii marka dad waxaa jira macnaha hore loo siiyay sharci deganaansho laakiin aanan Soomaalinimadooda cadeyn, taas waxay sababtay in qofka markuu sharciga deganaanshaha uu ka dhaco ama sharciga weyn uu dalbado la yiraahdo Soomaalinimada soo cadee, ama sharciga deganaanshaha markuu rabo inuu macnaha waqti ku darsado kale uu sharciga deganaanshaha xilliga loogu talagalay ka dhamaaday qasab waxa looga dhigay in markaas sharciga deganaanshaha aanan dib loo siin doonin ilaa ma Soomaalinimadii soo cadeeyo. marka muhiimadda ay leedahay Soomaalinimada inaad soo cadeysid waxaad ogaanaysaa in ay qayb weyn ka tahay inaad macnaha Soomaalinimada soo cadeysid si aad sharci qaadatid. marka intaas way ka wada siman yihiin. marka hal qaab ama hal nooc ay marka ku kala duwan yihiin inkastoo magaalooyinka qaar ay isku mid yihiin. halkaasna waxa uu yahay waxa laga yaabaa sharciga bini'aadamnimada marka haysatid oo sharciga deganaanshaha aad doonaysid in lagu yiraahdo macnaha waxa laga baahan yahay shahaadada darajada 3 ama B-1 waa inaad keentaa si aan sharciga deganaanshaha ku siino maadaama aad sharciga bini'aadamnimo aad haysatid. waa fahantaa umaleena waa shahaadada B-1ka. laakiin kan sida caadiga ah asafay ama shahaadada darajadeeda 2 waad ku qaadan kartaa sharciga macnaha deganaanshaha haddaad sharcigan haysatid. laakiin shuruudda kale oo dhan way ka wada siman yihiin. sharciga deganaanshaha muhiim ayuu ku yahay. iska xareyso haddii aadan macnaha xareysan karin sharciga weyn ama haddii aad doonayso sharciga weyn xataa inaad xareysatid waa ku muhiim inaad sharciga deganaanshaha haysatid, sababtoo ah sharciga deganaanshaha markaad haysatid oo xafiiska degtid waxa laga yaabaa macnaha rajadaadu inay aad u fiican tahay. qolooyinka marka sharciga ku xareysanayana ay markaasiba su'aalo badan aysan ku weydiin. laakiin sharci bini'aadamnimo ama mid kale oo qaxootinimo aad u haysatid dad sharciga weyn dalbanaya runtii shuruudo badan ayaa lagu xirayaa. waxa laga yaabaa waxyaabo aad filin xataa in lagu weydiiyo oo caqabado kale kulantid. muuqaalku waa idinku dheereeyay insha Allah intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. inta muuqaalo kale oo xiiso leh ku kulmi doono waxay ka tagayaa asxaabta sharafta mudan. sidaas iyo nabadgelyo iyo is arag kale oo wanaagsan.